بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan Maracadda Show waa 30 bisha June sanadka 2026 qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa kamid ah dagaalka Iran kaga bilowday gudaha dalka Iraq Mareykanka iyo dawladaha qaliijka ayaa ku guuleysan doona dagaalka cusub ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu Iraq ka wado oo lagula dagaalamayo kooxaha hubeysan muddada loo qabtay suuragal ma tahay inay wax walba ay ku idlaadaan malaayiinta dollar ee gacanta lagu dhigay waliba iyaga oo kaash ah waxaan eegi doonaa Iraq iyo guud ahaan waxyaabaha ka socda maxay Iran iyo Mareykanka isku fahmi laayihiin wada hadallada maanta ka furmaya magaalada Dooxa oo dalka Qatar ah sidoo kale waxaan eegi doonaa qorshaha cusub ee Mareykanka uu doonayo inuu ka dhaqangeliyo gudaha magaalada Gaza qorshahaas oo la isweydiinayo sida Israa'iil ay ku ogolaan doonto dadka oo la doonayo in laga barakiciyo goobaha ay xoogagga iska cabinta ee Xamaas ay maamulaan waa maxay mashaariicda la doonayo in magaaladan laga hirgeliyo iyadoo hubka aan laga dhigin xoogagga iska cabinta sidayna arrintan suuragal ay ku noqonaysaa aroos wadareedka magaalada Gaza ka dhacay iyo qodobo kale oo muhiim ah in qaybtan kugula wadaagaya insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo Maracadda Show barnaamijka falanqaynta caalamka markale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan ku hormarayaa arrinta ku saabsan magaalada Gaza gaar ahaan dhanka waqooyi ee magaaladaasi waxa markii ugu horeysay lagu qabtay aroos wadareed loo dhigay 150 wiilal iyo gabdho ah kuwaas oo arooskooda uu ka dhacay mid ka mid ah xeryaha ku yaala magaaladaasi waxay dadka ay soo xirteen gaar ahaan wiilasha 150 ka ah dhaqanka iyo dharka lagu yaqaano reer Gaza iyadoo dumarkana sidaas oo kale ay soo xirteen munaasabadan waxaa lagu qabtay dhismayaasha burbursan iyo xarumihii ay dagaaladu ay burburiyeen iyadoo ay noqotay tii ugu horeysay oo waqooyiga magaalada Gaza lagu qabtay tan iyo dagaalka markii uu bilowday 2023 sidaan oo kale way dhacday inta badan reer Gaza marka la eego maadaama marxalada burbur ah ay la kulmeen laakiin muuqaalka ka soo muuqday goobta xafladda lagu qabtay wuxuu muujinayaa dadku wali inaysan qoonsan dhaqankoodii aysan ka tagin nolosha cariiriga ah haddii ay la kulmeenna aysan ka dhignayn inay wax walba ay ka tanaasulayaan warbixintu aad bay u dheereed oo xirada Jabaaliya ku saabsan iyadoo wadooyinka la isugu soo baxay haweenka carruurta iyo sidoo kale dadka da'daba ay ahaayeen kuwa faraxsan dhinaca kale aan kula wadaago warbixintan Mareykanka waxa lagu waramayaa inuu doonayo inuu magaalada Gaza uu ka hirgeliyo qorsho Israa'iil laga yaabo inay ku adkaato laakiin dhinaca kale aad muddo inay tahay marxalad aad u adag marka la eego dhanka xoogagga iska cabinta sidee qorshahan loo dhaqan gelinayaa waxa la doonayaa magaalada iyadoo aanan hubka laga dhigin xoogagga iska cabinta ee Xamaas in mashaariic kala duwan laga fuliyo mashaariicdaasina waxa ku hoos jira in dadka magaalada Gaza qaybta ay maamulaan xoogagga iska cabinta ku sugan loo raro halka ay ciidamada xasilinta ay joogi doonaan ciidanka xasilintana toddobaadkii hore waatii aan idinla wadaagay inay soo saareen qoraal ay ku leeyihiin waxaan doonaynaa inaan loo ciqaabin ama loo qabsanin dambiyada ciidamadaasi ay geystaan iyo mas'uuliyiinta xilalka haya yani wax walba oo dhibaato ah oo ay ka geystaan gudaha magaalada Gaza aan kula wadaago warbixinta dukumiinti gacanta lagu dhiga ayaa waxa uu dhigayaa in Israa'iil ay ogolaato hirgelinta mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada Gaza sida korontada biyaha iyo adeegyada muhiimka ah inkastoo aan la caymin goobaha saxda ah ee laga fulin doono mashaariicdaasi waxa kaloo qorshe uu yahay dadka ku nool deegaanada xoogagga iska cabinta ee Xamaas ay maamulaan in laga raro deegaanadaasi isla markaana loo raro deegaanada ay gacanta ku hayaan golaha nabadda ka hor dhamaadka sanadkan 2026 lama sheegin in marka ay golaha nabadda ay tagaan magaalada Gaza halkaas la bilaabi doono oo dadka halkaasi la geyn doono miyaa lagu qasbi doona mise waxyaabo kale ayaa loo ballan qaadaya mise goobaha ay ciidamadaas ay golaha nabadda loogu magac daray ku sugan yihiin ayaa mashaariic laga fulin doonaa oo dadka ku qasbaysa inay halkaas ay u guuraan dukumiintiga waxaa kaloo lagu sheegay in la dhisi doono xarunta dhexe ee dawladda technocratka ama dawladda yani qof walbaaba shaqada u yaqaan loo dhiibayo iyada oo la siinayo ogolaansho lagu dhisayo saldhigyada ciidamada caalamiga isla markaana la dhisayo isbitaalka guud ee magaalada Gaza isbitaalka Yurub la yiraahdo iyada oo la ogolaanayo gelinta qalabka caafimaadka iyo agabka dhismaha lana sameynayo wada amaan ah oo lagu gaarayo isbitaalkaasi qorshaha waxa sidoo kale u dhigaya in Israa'iil canshuurihii ay u ururisay maamulka Falastiin ee la xiriira arrinta magaalada Gaza in lagu wareejinayo golaha nabadda iyada oo isla markaana la bilaabayo aqoonsiga dawladda technocratka ah ee loo dhisayo Falastiiniyiinta iyadoo la doonayo inay noqoto hay'ad awood leh oo maamusho guud ahaan magaalada Gaza
dowladdaasi waxaa loo ogolaanayaa inay si xor ay ugu safri karto gudaha iyo dibadda magaalada Gaza howlo amni ah oo weliba rasmi ah. waxaa sidoo kale la qorsheeyay in la ogolaado qaybinta shidaalka iyo hirgelinta lacag bixinta digitalka si loo yareeyo awoodda xoogagga iska caabinta ee Xamaas ee canshuur ururinta iyo lacagaha laga qaado dadka shacabka ah. arrinta kale ee cajiibka waxaa qayb ka ah qorshaha in magaalada Gaza laga hirgeliyo adeegga internetka ama adeegga isgaarsiineed ee 4G loo yaqaan ama jiilka afraad, iyadoo ujeedadu ay tahay in deegaanadaasi maadaama markii horeba laga mamnuucay hadda dadku ay helaan. waxaa sidoo kale cafis loo fidin doonaa weliba sharuudaysan dadka doonaya inay hubka ay dhigaan kuna wareejiyaan qaybaha kala duwan ee ciidamada golaha amniga. halkaas marka waxaad moodaa inay wax badan ay isku qasan yihiin, qaybna ay ka tahay qorshe la doonayo in xoogagga si dadban hubka looga qaado, dadkana lagu sameeyo maalgelin, laguna qasbo inay deegaano kala duwan ay isaga kala gudbaan. dokumentiga marka aad buu u dheeryahay oo telefishinka Al Jazeera laga baahiyey ama laga sii daayay. golaha nabadda ayaa waxaa loo xilsaari doonaa maamulka sahayda shidaalka, nidaamka lacag bixinta, sidoo kalena waxaa laga shaqayn doonaa dhimista ilaha dhaqaale ee xoogagga iska caabinta. mar haddii lacagta digital lagu qaadayo oo aan qaabkii la yaqaanay ee hore aan loo qaadaynin, bangiye la doonayo in halkaasi laga hirgeliyo, wax walba waa dareemi karaysaa. marka dhanka amniga marka la eego, qorshuhu waxa uu dhigayaa in ciidamada xasilinta ee caalamiga ah ee la sameeyey inay qayb ay ka noqdaan ilaalinta xasiloonida, kuwaas oo kabi doonaan ama ay taageero ka heli doonaan ciidan Falastiiniyiin ah oo hore loo diyaariyay. malaha waa kuwii Masar iyo meelo kale lagu tababaray. isla markaana Israel waxaa loo ogolaanayaa inay qaado tallaabo kasta oo ay u aragta lagama maarmaan si ay u sugto amniga haddii xoogagga iska caabinta ee Xamaas aysan aqbalin hubka dhigidda qorshahan. warbixinta marka hadda warbaahinta ayaa lala wadaagay falcelinta ka timaada, jawaabta Israel ee ka bixisay iyo wax walba oo ka soo kordhay. insha Allah barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa. warbixintan oo aad u dheerna telefishinka Al Jazeera qaybtiisa Carabiga ayaad ka heli kartaa si aad macluumaad kale oo dheeraada aad u hesho. aad baad u mahadsan tahay. like-san muuqaal kalena wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay mar kale. dalka Ciraaq waxaa ka soconaya laba nooc oo dagaal ah. mid ka mid ah waa qorshaha la doonayo in lagula dagaalamo musuqmaasuqa, waxaana arrintaasi ka dhabaynaya ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Ciraaq oo horey ballanqaadyadaasi u sameeyey. dagaalka kalena waa midka la doonayo in lagula dagaalamo kooxaha hubeysan ee ku sugan gudaha dalka Ciraaq, kuwaas oo aan ka tirsaneyn ciidanka amniga ee dowladda Ciraaq. arrinta musuqmaasuqa aan ku hormarno. waxaa baaritaano lagu sameynayaa in ka badan 67 mas-uul oo xilal kala duwan haya, xubno baarlamaan ah iyo xitaa golaha wasiirada ku jira. sheekadu waxay kasoo bilaabatay wasiirka batroolka ee dowladda Ciraaq. isaga ayaa markii la qabtay kadib waxa uu banaanka keenay xubno kale. gurigiisa ayaa hadda waxaa laga soo helay lacag kaasha oo aad u tiro badan, ilaa ku dhawaad 11 milyan oo dollar ayaa laga soo helay qayb barkad ah oo lagu dabaalanayay dhismaha ka dambeeya oo aad moodo sida qaanad oo kale in loo sii diyaariyey, halkaasina lacagaha lagu keydinayo. waa hadda 11 milyan oo dollarka Mareykanka oo weliba kaash ah. sidoo kalena xildhibaan Caaliya Nasiif oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee dowladda Ciraaq, iyadana gurigeedii ayaa la tagay, waxaa laga soo helay 15 milyan oo kaash ah. hadda waa 15 milyan oo kaash ah, ma aan wax bangi ku jira iyo wax digital iyo meelo kale la geliyay. kadib markii baaritaan lagu sameeyay, boorsooyin lacagahaas ay ugu kaydsanayeen ayaa laga soo qaaday. dowladdu waxay sheegtay marka inay baaritaano kale ay wadaan, lacaga tiro badanna ay doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan maadaama shakhsiyaadka hadda iyaga isfarmuuqayaan. waana qorsho musuqa lagula dagaalamayo. lacagtaasi wax lagu qabanayo iyo in dadka dib loogu celinayo mas'uuliyiinta dowladda marka howlgalka u ilaada ayaa laga doonayaa inay faahfaahin ka bixiyaan. xildhibaan Caaliya kaliya iyada kuma koobna ee wiilkeeda sidoo kale waa la soo qabtay, waxaana lagu warramayaa in lagala wareegay fardo qiimahooda lagu sheegay ilaa 7 milyan oo dollar. fardo lagu soo iibiyey oo uu adeegsanaya ayaa lagala wareegay. wiilkeeda waxa uu mar xog haye ka soo noqday, mas-uulna ka noqday xafiiska ra'iisul wasaarihii hore ee ra'iisul wasaaraha iminka talada haya ka horreeyay. marka waxaa loo maleynayaa markaas inuu musuqmaasuq iyo isdabamarin uu sameeyey. weliba xafiiska ra'iisul wasaarihii hore waa Maxamed al-Suudani, waa ninkii ka horreeyay. aaga marka green zone-ka loo yaqaan ee dalka Ciraaq ayaa inta badan baaritaanadu ay ka dhacayaan, iyadoo sidaa musuqmaasuq loola dagaalamayo oo ilaa iminka dowladdu 28 milyan ilaa 29 milyan oo dollar oo kaash gacanta ay ku dhigtay. dhinaca kale isla dowladdu waxay ku dhawaaqday dagaal ka dhana kooxaha hubeysan ee ka dhisan gudaha dalkaasi Ciraaq. dagaalkan waxaa moodaa si toos ah inuu ugu wajahan yahay dowladda Iiraan. warbaahinta dowladda Iiraan way ka hadashay, aan kula wadaago macluumaadyada. dowladda Ciraaq afayeenka xukuumadda u hadlay ayaa wuxuu shaacu ka qaaday
ilaa September soddonkeeda Septemberta soo socota soddonkeeda in loo qabtay kooxaha hubeysan ee aan dowladda ku jirin in hubka ay soo wareejiyaan. Ciraaq waxaa ka dhisan kooxaha hubeysan way kala xagjirsan yihiin ama yani way kala adag yihiin marka la eego go'aanadooda ee kuwa sunniyiin iyo kuwa shiica ahba. Inta badanna waxay taageero ka helaan dowladda Iran. ilaa September soddonkeeda marka kooxahan waxaa laga doonayaa dhammaan inay hubka ay wareejiyaan dhanka dowladana ay ku biiraan. warbaahinta dowladda Iran waxay leeyihiin arrintan waxay ka dambeysay kadib cadaadis kaga yimid ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda Ciraaq dhanka iyo dowladda Mareykanka. xilligaasi dowladda Ciraaq marka 3 September waxay dhahday waxaan doonaynaa in gabi ahaanba ciidanka isbahaysiga Mareykanka uu hogaaminayo dalkaasi Ciraaq ay ka baxaan, sidaa daraadeed waa inaan amniga aan anaga la wareegnaa. bisha July ee soo socotana ra'iisul wasaaraha cusub Washington ayuu tagi doonaa, halkaas oo mas'uuliyiinta dowladda Mareykanka uu kulamo uu kula yeelanayo. sidoo kalena bishan hadda aynu ku guda jirno 10keedii bilowgeedii waliba waa maanta ku Tom Bragg oo ah ergeyga Mareykanka u qaabilsan Ciraaq ayaa magaalada Baghdad kula kulmay ra'iisul wasaaraha cusub. arrimahaas iyo arrimo kalena way ka wada hadleen. dhanka amniga marka laga yimaado waatii aan warbixin toddobaadkii hore idin la wadaagay in qaar ka mid ah dowladaha khaliijka ay dowladda Ciraaq ku cadaadin doonaan in ay kooxaha hubeysan halkaasi ka dhisan gabi ahaanba daaqada laga saaro. sababtoo waxay rumaysan yihiin 90% dagaalka inta uu socday duqeymihii ay la kulmeen dowladaha khaliijka dhanka Ciraaq inay ka imaanayeen. waliba waxay yiraahdeen kooxaha xasdu shacbi iyo kooxaha waaweyn xitaa marka laga yimaado kooxo yaryar ayaa la sameeyo 4-4-2-2-3 u socda kuwaas oo weerarka fuliyay. sidaa daraadeed haddii Iran ay doonayso dagaalka lama hor doono ama haddii lagu laabtaba haddii Iran ay doonayso in annaga ay toos noola dagaalamaan iyaga xaggeeda weerarka nooga yimaado, laakiin dhankiina ayuu weerarka nooga imaanaya. xukuumadda cusub marka ballanqaadyo loo sameeyay oo maalgelin oo kooxahaas haddii ay ka adkaato waxyaabahan dadaadana way jiraan, culeysyo badan oo dhanka amniga iyo sirdoonkana way jiraan. arrimahaas oo idil ayaa isbiirsanaya sida warbaahinta ee dowladda Iran gaar ahaan Press TV uu taabacayo. marka Ciraaq la joogo marka kooxaha hubeysan oo aad u badan ayaa jira, way kala dooyin qaar waxay aaminsan yihiin dowladda inaan la heshiino, qaar waxay taagan yihiin dowladda waa la heshiin karaynaa laakiin maxaa la yiraahdaa waa inaan ciidamada ay laga saaraa. iyaguna waxay taagan yihiin mas'uuliyiinta dowladda Ciraaq iyo Mareykanka iyo dowladihii kaleba haddii Daesh laga adkaaday kuwana waa laga adkaan karaya, sida daraadeed waa inay daaqada ay ka baxaan. dagaalkaasi iyo Iran siday u maareynayso waa waxyaabaha la isweydiinayo, waana dagaal cusub oo dhanka kaga yimid. maxaa yeelay waxaa la doonayaa kooxihii dowladda Iran garbaha u ahaa si tartiib ah in daaqada looga saaro. waliba maalin ka hor waxaa dalkaasi Ciraaq tagay wasiirka arrimaha dibadda ah ee dowladda Iran Abbas Araghchi. ra'iisul wasaaraha cusub ayuu la kulmay, way wada fariisteen, arrimo badanna way isla soo hadal qaadeen. wax walba oo ka soo kordha oo kula wadaagi doona dagaalkaasi iyo sida Iran ay u wajahdo haddii looga guuleystay iyo haddii kaleba. barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah. like muuqaal kalena wadaag saaxiibadaada. koox hubeysan ayaa lagu warramaya galbeedka dalka Iran inay weerar ay ka fuliyeen iyaga oo laba ka mid ah ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iran halkaasi ku dilay. Iran dhinaca kale wafdigeedii iyo wafdiga Mareykanka ka socda waxay gaareen magaalada Dooxa. maanta ayaa la wada hadli doonaa. arrimo badan ayaa la isku hayaa oo miiska saaran. Iraniintu waxay taagan yihiin qaar ka mid ah qodobadii iyo artikaladii lagu heshiiyey Mareykanka inuu dhaqan geliyo ma doonayo, sidaa daraadeed waa lama huraan in arrinta Mareykanka Hormuzna ay noqoto qodobka ugu weyn ee miiska saaran. arrinta waxaa ku soo biiray Faransiiska oo wuxuu taagan yahay miina baaris ayaan ka sameynayaa marinka Hormuz. cidda kaliya ee miina baarista inay sameyso loo ogol yahayna waa dowladda Iran, laakiin Mareykanka iyo xulafadiisa iyo waxay bilaabeen inay yiraahdaan dhanka Cumaan ayaan miinada ka saaraynaa annaga. dhanka Cumaan haddii aan miinada ka saaraynana kama dhigna inaan marinka Hormuz ka saarayno, ku xadgudbina madax banaanida dalka Cumaan. Cumaanna ilaa iminka war rasmi ah ma aanay soo saarin. Iran iyo Cumaan way ka wada hadleen arrinta ku saabsan marinka Hormuz. dowladda Iran maanta war kale ayay soo saartay oo waxay yiraahdeen xitaa haddii Cumaan ay ogolaatay miinooyin in laga saaray agaarkeeda marinka Hormuz lacag ayaa lagu mari doonaa wixii hadda ka dambeeyay. sida wax loo maleynayna ma aha. marinka Hormuz waa marinka Hormuz, ama Cumaan dhankeeda ha ahaado ama dhankii ha ahaado, waana waxyaabihii lagu heshiiyey, mana aha bay yiraahdeen in dhinac kalena laga soo maro. wadahadallada marka qodobadaas ayaa miiska saaran oo magaalada Dooxa ayaa arrimahaasi looga wada hadli doonaa. sidoo kale Iraniintu waxay doonayaan wixii lagu heshiiyo lacagta in loo fasaxo ilaa $6 bilyan oo dollarka Mareykanka oo la yiri daawo iyo waxyaabaha la midka ayaa leedinkugu fasaxi doonaa oo inta badan qadar yaala. sidoo kalena qadar waxaa ku xanibay in ka badan $12 bilyan oo dollarka Mareykanka oo Iraniinta ay leeyihiin. wararka ugu dambeeya haddii aan eegno mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iran waxay sheegeen in amniga marinka Hormuz weli gacanta iyaga ay ku hayaan, cid aan iyaga ahayn miinada aysan ka saari doonin, aysan u ogolaan doonin dowlado kale. sidoo kale wasaaraddu waxay shacay ka qaaday in wada hadallada maanta natiijo fiican ay ka filayaan inay ka yimaadaan
sidoo kalena mas-uuliyiinta dowladda iiraan ayaa sheegay in iyaga amniga xaqiijin doonaan cid kalena aysan u ogolaan doonin marinka hormus. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda iiraan ayaa yiri waa in la dhaqangeliyaa dhammaan heshiiskii MOU-ga ahaa ee lagu saxiixay dhanka iyo internetka. ruushka haddii aan eegnana Ukraine iyaga duqeyntii ayay weli isweydaarsanayaan. xaaladda dhankaas aad bay u adagtahay markaad eegto duqeymaha iyo sida ay wax u socdaan. arrimahan oo idil wax walba oo kasoo kordha waan kula wadaagi doonaa. kulaylkii waa sidiisii ee wadamada qaaradda Yurub, dadka dhimanaya ayaa sii kordhaya. barnaamij midkan lamid intaan ku kulmi doonaan waxaa idinkaga tagayaa nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.